إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله تعالى وحين عاوي بلا بدونا درسك كسابسا تفسير القرآن الكريم كا عاو هبين جمعة سوق ليه وحنو إن شاء الله تعالى درسك أنا كو أخرينا مقالة مينيابوليس وطنك قبل كلو يقام مينيسوتا waddanka Mareykanka. Caawa taariikhdu ama bishu waxa weeyaan marka la fiiriyo dhinaca hijriyada ama taariikhda islaamka Jamaadul Awwal bisha loo yaqaano ayaa maanta 28 sanadkuna waa 1433 taasoo ku beegan bisha Abriil 19keeda 2012 waxaa ka qayb qaatay iskuna dabariday ama sponsoray tafsiirkan suurtana galiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka bacdi TV-ga loo yaqaano Global Box TV. Global Box TV TV-ga loo yaqaano ayaa sponsoray oo gacan ka qaatay. Haddaba tafsiirkani waxaan u akhrin doonaa insha Allah ta'ala si kooban oo qofku wacdi una ka qaadan karo tafsiirkiina uu ka ogaan karo. sidoo kale waxaan ka bilaabaynaa hoos korna u soconayna quraanka marka la tafsiirayo wuxuu ku fiican yahay la akhrinayo in kor iyo al-faatixada iyo al-baqara laga soo bilaabo laakiin maadaama dadka intooda badan ay suuradaha hoos ay bartaan si ay ugu tukadaan inay macnihiisa fahmaan waxa ay ku tukanayaan laga maarmaan ay tahay ayaan waxaan door bidnay inaanu ka bilowno xagga hoose suurada loo yaqaano suuratul naas ama qul a'uudu birabbin naas inaanu ka bilowno oo kor wadno insha Allah ta'ala. labada suuradood oo caawa u horeeya oo akhrin doono mucaawadateyn baa loo yaqaanaa waa suurada la yiraahdo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin naas. tafsiirku caawa labada kuma koobnaan doono insha Allah ta'ala inta aynu gaarno waqtigu gaaro ayaan wada doonaa laakiin labadan suuradood badanaaba waa la isku qabtaa waxaan la isku qabtaa nabiga kaleey salaatu wassalaam si gaar ah buu hadlay. nabiga kaleey salaatu wassalaam xadiis wuxuu ku leeyahay آيات لغو سو دجي عاوة إيغو wax lamida anu ma aan arag wax lamida ma jiraan nabi markuu akhriyo yaqul a'uudu birabbil falaq yaqul a'uudu birabbin nas labadaas suuradood nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu ku sheegay suuradaha iyaga ay wax lamidihi ma jiraan. suuradaha nabiga kaleey salaatu wassalaam sidoo badanaa bay ka dharagsan yihiin nabiga kaleey salaatu wassalaam waa la sixray waxaana sixray nin yahuudiya oo Labiid ibn Acsam la oran jiray yahuudi marka deganayd magaaladaas Madiina ahayd ninkaas ayaa maaratay sixray. waxa kale la yiraahdaa waa nin Bani Zurayq qabiilka loo yaqaano xalif la yahuuda ah ninkaas nin munaafiq ahana waa la yiraahdaa. si kastaba ha noqotee nabiga kaleey salaatu wassalaam waa la sixray. Aisha radiyallahu ta'ala anha si sheegayso laga warinayo nabiga kaleey salaatu wassalaam inuu tilmaamay sixirkii la sixray in laga furdaamiyay waxaan looga furdaamiyay waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wassalaam inuu isku akhriyay labadan suuradood oo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin nas. Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay leedahay kana idha ishtaka wuxuu ahaa nabiga kaleey salaatu wassalaam markuu xanuunsado nabiga kaleey salaatu wassalaam markuu xanuunsado wuxuu ahaan jiray yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadatayn. nabiga kaleey salaatu wassalaam naftiisa wuxuu ku akhrin jiray mucaawadataynka suuradaha loo yaqaan oo labadan suuradood ah
qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi nnaas labadaas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam isku akhrin jiray wayanfuthu wuuna isku tufi jiray nabiga calayhi salaam oo yacni gacmihiisu nabigu intuu ku akhriyo saa ugu akhriyo labadaas suuradood qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi nnaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam jirkiisa marin jiray waxay leedahay caaisha radi allahu tacala canha falama ishtadda wajacuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunku ku darnaaday oo xanuunku aada iyo aada u noqday kuntu aqra'u calayhi bilmucawadaat waxay tiri aniga ayaa ku akhrin jiray labadan suuradood wa amsaxu biyadihi calayhi raja'a barakatiha waxaan samayn jiray bay tiri gacantiisa awal nabiga marka uu caafimaadka qabay hadduu xanuun yar dareemo labadiisa gacmood buu ku akhrin jiray isaga ayaa ismarin jiray marka waxay tiri caaisha radi allahu tacala canha oo xaasaskii nabiga ka mid ahayd markii nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuun ku darnaaday oo yacni xanuun uu qabtay aanu dhaqaaqi karin iyada ayaa gacantiisa ku akhrin jirtay kabacdi gacantiisa ayay jirhkiisa marin jirtay caaisha radi allahu tacala canha marka suuradahan waxayna tusaayaan marka in qofku markuu xanuunsan yahay la isticmaalo oo intii aad gacmaha ku akhrido jirkaaga mariso sidoo kalena nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la jideeyey marka la seexanayo labadan suuradood iyo qul wallahaba saddexdaba intii yani gacmaha ku akhrido inaad jirkaaga marinaysid arrinkaa isaga wuxuu kuu noqonayaa wax ku ilaaliya ayuu kuu noqonaya caaisha radi allahu tacala canha waxay tilmaantay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u sheego oo yidhi caaishaay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa caafimaad i siiyey oo xanuunkii hayay oo sixirka ahaa ilahay baa caafimaad iga siiyey siduu ii siiyey allah subxaanahu wa tacaalana waxay ahayd ataanii rajulaani laba nin baa ii yimi faqacada axaduhumaa cinda ra'sii walaakharu cinda rijlii laba nin baa ii yimi anoo hurdo mid ka mida madaxaygu fadhiistay midna lagu fadhiistay laba marag bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu jiranaa oo sixirkii ay qolyaha yuhuudda ay sixreen laba marag baa u yimi si sixirka looga furo midna madaxu ka fadhiistay midna laguhu ka fadhiistay wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala aladii cinda ra'sii lilaakhar kii lugahayga fadhiyey baa kii kale wuxuu ku yidhi maa baalu rajul ninka xaalkiisu muxuu yahay ninka maxaa ku dhacay iyagii baa su-aalahaas weydiinaya laba nin baa ii yimi anoo hurda midna luguhu iga fadhiistay midna madaxu iga fadhiistay kii lugaha iga fadhiistaa wuxuu ku yidhi kii madaxa iga fadhiistay ninka maxaa ku dhacay kii kale marka wuxuu yidhi qaala matbuub waa sixran yahay waa la sixray markaasuu wuxuu yidhi yaa sixray kii kale wuxuu yidhi labiid ibni acsan baa sixray oo sideebuu u sixray muxuuse ku sixray fii mishtin wa mishaaqa yacni shanlo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ayuu ku sixray shanladaas timaha ama garfeerta waxa loo yaqaano timihii ayaa la qaaday oo sixir lagu sameeyey way is weydiiyeen xaggee baa la dhigay sixirkii isaga ahaa waxay tiri caaisha radi allahu tacala canha nabigii labadii nin baa iswaraysanaya buu yidhi oo wuxuu yidhi mid ka mid ihi xaggee baa sixirkii la dhigay ila sixirka marka la sameeyo ama tiima ha noqde ama wax kala noqde meel baa la geliyaa inta sixirkaas meeshu yaallana qofku waa sixran yahay waana jiran yahay meeshii bay tilmaameen waxay yidhahdeen ceelka noocaas iyo noocaasa buu yaallaa ceelka noocaas iyo noocaasa ayuu yaallaa ceelkii baa la tegay waa laga soo saaray waxaa la yidhahda ceelka waxaa loo tegay biyihiis iyagoo xinno u ekaadeen guduud ay noqdeen ayaa loo tegay wuxuu sameeyey sixirkii buu sameeyey nabiga markuu sixray ceelka biyahaas hoostooda wuxuu ka qoday god halkaasaa la gashay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam suuraddan fadaa'ilkaas buu ku sheegay in maaragtay sida caaisha tilmaantay nabiga calayhi salaatu wasalaam isku akhrin jiray labadan suuradood suuratu nnaas suuradda u horeysa inu akhriyayna suuratu nnaas baa la yidhahdaa waa suurad maki ah maki waxaa la yidhahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogay suuradii soo degay waan u tegi doonaa madani suurada madani ayaa jira oo macnaheedu tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madina joogay suuradii soo degay marka suuraddaani waxay ka mid tahay suuradihii nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka jooga soo degtay aayaadkeeduna waa 6 aayadood bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabay arraxmaan ilaahay naxariista guud lahaa arraxiimi ilaahay naxariista gaar lahaa ayaan ku bilaabay marka arraxmaan iyo arraxiimi waa sifaat allah subxaanahu wa tacaala leeyahay magacyo allah subxaanahu wa tacaala leeyahay
الرحمن صفة يداهي الله سبحانه وتعالى كسفي سيها نحريستي سمير الباقي كارتو كي نحريستي واسع هاي مرك الرحمن إلهي با مقع عسقارو له مرك مقع ليرادو إريق الرحمن مقع ليرادو إلهي با قارو له قفل الله بحين كرو الرحمن إلا إن وحلو إضافة الله لقى ماهان وعبد الرحمن إيو ساسو قال لي هذا ماني إريق الرحمن قفل الله بحين كرو إلهي با قارو له أما الرحيم صفة الرحيم والصفة اللي هويان وانا مقع اللي هي لكن قف والله بحين كرايو او لوغو يري كرا لان النبي عليه الصلاه والسلام الهي مركو كورما الهي وحو ليهي النبي عليه الصلاه والسلام رؤوف الرحيم ويان رؤوف الرحيم ويان قل وحد ترى هذا النبي محمد اعوذ وحن مغنغلي برب الناس دتك رب قودي ايان مغنغلي ملك الناس دتك بقر كودي ايان مغنغلي مالك الناس نوريدي إله الناس دتك إلهودي أيان ما قال أنت الله سبحانه وتعالى وحكوش يكتي صدح صفو الله سبحانه وتعالى كسفي سيئه صدح الماموت وإلهي سبحانه وتعالى كسفي سيئه مد أهرس وحوية ربوبية ده وحويان رب النمو إلهي سبحانه وتعالى إنه رب كويهي إلهي سبحانه وتعالى إنه كأساقه إلهي سبحانه وتعالى إنه معدن كسيه إلهي سبحانه وتعالى روبك إنه كسيه تقول حتى waxa weeyaan mulk wa boqortooyo weeyaan ilaahay maamulka iska leeyahay tasarrufka koonkan Allah subhanahu wa ta'ala iska leh ilaahay ba ku maamulaya maamulka Allah subhanahu wa ta'ala iska leh sifadaas dhaxana waxa weey ilaahay weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay yahay cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala isagu inuu leeyahay isaga in la caabudo saddexdaas sifo ilaahay iska leh ayaan magan galay